musharaxa madaxtinimada Puntland Dr. Ali Xaaji Warsame ayaa maanta soo gaaray caasimadda waddankan Zambia ee Lusaka. boqolaal dadweyne ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay musharaxa dhismaha gegida diyaaradaha caalamiga ee magaalada Lusaka. sidoo kale waxaa soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay madaxda jaaliyadda iyo waliba xubnaha safaaradda Soomaaliya ee waddankan Zambia. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Anigu ku hadlaya afka jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Zambia. maanta waxaa noogu yimid musharaxa madaxtinimada Puntland Ali Xaaji Warsame oo aanu ku soo dhaweynay aeroboortka. soo dhawow baanu leenahay markale soo dhawow baanu leenahay. waxaanu jecelnahay inaanu soo dhaweyno musharaxa u taagan madaxtinimada Puntland Ali Xaaji Warsame anigoo ku hadlaya magaca ee gabdhaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba ama ha ahaat kuwa Puntland ama gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leenahay Ali Xaaji Warsame soo dhawow gacmo furan gacmo diiran waxaanu rajaynaynaa inaad noqoto oo aad ku soo baxdo madaxtinimada Puntland waxaan ka qabnaa rajo badan waxaan aaminsanahay waxyaalo badan inaad u qaban karto dadka reer Puntland gaar ahaan gabdhaha Puntland gaar baan ku soo dhaweynaynaa waxaan jecelahay xuquuqdeeda naga maqan aan wax badan raadinayna inaad noqon doonto mid soo dhacay. musharax Ali Xaaji Warsame ayaa si kooban uga warbixiyay saxaafadda socdaalkiisa Zambia isagoona ka mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen jaaliyadda reer Puntland ee waddankan Zambia. Bismillahir Rahmanir Rahiim. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta imid magaalada Lusaka Zambia. waxaan mahad gaar u celinayaa jaaliyadda reer Zambia oo si fiican oo diiran ii soo dhaweysay. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo gaaro jaaliyadda Puntland ee degan dalkan Zambia. waxaan aad ugu faraxsanahay guusha uu gaaray Cabdi Warsame oo loo doortay consular waddanka Mareykanka oo runtii ahayd wax lagu farxo. waxaan kale oo ka tacsiyeenayaa waxyaalaha hadda ka dhacaya waddankii khaasatan magaalada Gudud oo dhibaatooyin ay ka dhacday iyo dhammaan dadka mataqaana meelaha kale oo ay dhibku ka jiraan. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo tagay waddankii oo barwaaqo ah oo roob da'ay oo sanadkan la filay inuu noqdo sanad barwaaqo ah deyrtan la filay inuu noqdo deyrta biyo badan. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayaa ummadda Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sanadkan sanadkiisa inuu gaarsiiyo barwaaqo iyo baraare. doorashada soo socota oo aan filayna inay dhacdo January 8-deedana Ilaahay si nabada oo wanaagsan noogu dhameeyo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Ali Xaaji Warsame ayaa la filayaa inta uu joogo inuu kulamo la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada jaaliyadda reer Puntland ee waddankan Zambia oo ugu horeeyaan ganacsatadu. waxaana 10 bishan xaflad weyn oo lagu taageerayo musharaxa lagu qaban doonaa magaalada Lusaka. Saciid Musa Daahir, Universal TV, dhismaha gegida diyaaradaha caalamiga ee Lusaka.